sida ku qoran buugga magaciisa la yiraahdo magac bilaash uma baxo ee ka hadlaya ujeedooyinka magacyada iyo naanisaha Soomaaliyeed ee uu qoray qoraaga Cabdiraxmaan Faarax Guri Barwaaqo Soomaalidii hore waxay magacyadu la bixi jireen laba hab mid uun kow habka kitaab furka laba habka magac Soomaali bixinta kow habka kitaab furka ilmaha dhasha waxa magaciisa loo noqon jiray iyadoo dib loogu noqonayo diintii oo looga eegayo magacyadii rususha magacyadii ubadkii rususha magacyadii malaa'igta tusaale ahaan magacyadii rususha Maxamed Ibrahim Ciise Muuse Nuux Ayuub waxa kale oo loo bixin jiray magacyada malaa'igta Jibriil Makaahil sidoo kale waxa loogu magac dari jiray magacyadii saxaabada rasuulka kaleey salaatu wasalaam Ali Ismaan Bilaal Abu Bakar sidoo kale waxa loogu magac dari jiray magacyadii ubadkii nabiga dhalay kaleey salaatu wasalaam Qaasim sidoo kale hablahana waxa loo bixin jiray Caasha Aamina Khadiija habka labaad ay Soomaalidu isticmaali jiray magac bixinta u isticmaali jireen waxa hab u gaara oo loo eegayo kolba xilliga uu ilmuhu dhashay hadii uu in leeyahay ama ilmaha loogu saadaalin jiray wax wanaagsan ama quruxdiisa loo eegayo ama midabkiisa tusaale ahaan xagga wiilasha waxa loo eegi jiray inta uu kolba leeyahay barre waxa loo bixin jiray ilmaha ku dhashay isagoo barle xaad ama dhagor waxa loo bixin jiray ilmaha leh xaada sidoo kale ilmaha leh timo bul ah madaxa kule oo markuu soo dhasho waxa loo bixin jiray dhoore sidoo kale ilmaha timihiisu dib u faydan yihiin waxa loo bixin jiray xayd sidoo kale ilmaha ku dhashay isagoo burale waxa loo bixin jiray burale ilmaha ku dhashay isagoo foodiisu yar yuubantayna waxa loo bixin jiray food sidoo kale waxa loo eegi jiray magac bixinta xilliga uu kolba ilmuhu dhashay wali wiilashii baan ka hadlayaa xilli colaadeed hadii ilmuhu dhasho waxa loo bixin jiray colaad guluf dirir magacyada ay kamid yihiin hadii uu dhasho iyadoo geedi lagu jiro ama la guurayo waxa ilmaha loo bixin jiray geedi sidoo kale hadii uu dhasho habeen iyadoo la gudayo waxa loo bixin jiray guure kolka waagu bariyo ilmaha dhasho waxa loo bixin jiray waa bari sidoo kale xilli rooban hadii uu dhasho waxa loogu magac dari jiray rooble ama xareed sidoo kale waxa isticmaali jireen Soomaalidu in ilmaha yar ee dhalanaya loo saadaaliyo wax wanaagsan tusaale ahaan waxa loo bixin jiray Samatar magacan marka loo bixinayo waa mid had iyo jeer loogu duceynayo ilmaha yar uu noqdo qof samaan oo marnaba aan ku kicin wax xumaan ah sidoo kale waxa loo bixin jiray Samakaab oo iyadoo laftirkeeda loogu saadaalinayo wax wanaagsan ama waxa loo bixin jiray magacyada ay kamid yihiin Booni oo loogu saadaalinayo inuu noqdo abwaan ama aqoonyahan sidoo kale waxa kamid ah magacyada loo bixin jiray Sharmaarke Barkhad iyo Geelle oo Geelle waxa loogu saadaalinayo inuu qof ilmahaas marka uu weynaado noqon doono nin geel badan maadaama geel uu ahaa waxa Soomaalida ugu muhiimsan sidoo kale waxa loo eegi jiray quruxda waxa loo bixin jiray inamada maydhane qorane dhoobane xalane miigane sidoo kale waxa jiray magacyo kale oo ujeedooyin kala duwan leh tusaale ahaan kadiye ama mire waxa loo bixin jiray wiilka u dhasha si kidis ah ama hooyadii iyadoo aanay gaadhin xilligii ay umuleysay marka si degdeg ah u dhasha waxa loo bixin jiray kadiye sidoo kale ilmo hore hadii uu dhintay ilmaha ka daba dhasha waxa loo bixin jiray gaaxnuug sidoo kale inanka la dhasha inama fara badan waxa loo bixin jiray gaas ama guutaale hadaan u nimaadno dhinaca hablaha hadii jeer waxa loogu magac dari jiray midabka tusaale ahaan inanta madow waxa loo bixin jiray magacyada ay kamid yihiin Yusur Chinaw Hira inanta casna waxa loo bixin jiray Dhuuxo Cudbi Dhool Tiriig iyo Siraad sidoo kale hablaha waxa loogu magac dari jiray quruxda waxa loo bixin jiray magacyada ay kamid yihiin Saluugla Shaqlan Saxarla Midifla Qamaansha Mihiya Shukri Hodan Hadiyo Qoran Biiriya Kordhiya iyo Bareera sidoo kale waxa hablaha loogu magac dari jiray oo kamid ah magacyada loo bixin jiray magaca Baada oo ah inanta dhalata tiyo aan hooyadeed amin door ah waxba dhalin hayeshay caruur hore leeday ayaa loo bixin jiray magaca yacni waa inan soo baaday milgo ayaa kamid ah magacyada loo bixin jiray hablaha oo waxa loo bixin jiray inanta la dhalata wiilal fara badan dhaqankaas wuxuu ahaa dhaqan aad u wanaagsan oo aynu lahayn balse hadda sal guuray
iminkana magacyada hablaha magacyada caruurta dhashay talo maxaa loo bixiyaa aynu isweydiino bal waxa loo bixiyo aynu noqono dhaqankeennii waxaan ku soo gabagabeynayaa Ramadaan Kariim